أحمد محمود حسن باستو oo mar loo doortay madaxweynaha galmudug oo maanta waraysi gaar ah ku siiyay Muqdisho telefishinka Sam News ayaa waxaan wax ka weydiinay ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya ay geysay magaalada Dhuusamareeb taasoo ay Ehelsunna sheegtay in ayna aqbalaynin ciidamada dawladdu ay keentay magaalada Dhuusamareebna ay amni tahay dawladda federaalka Soomaaliya Ehelsunna ay galeen oo ay Ehelsunna sheegtay inuu heshiiskaasi buray waxa uu sharaxayaa sida uu arrimahaasi u arko dawladdii baan kalsoonidii kala laabanay ra'yiga ahi culimadii Ehelsunna waxaan leeyahay inay joojiyaan baan ugu baaqaya dawlad la'aan waxba ma shaqeynayo maamul dawlad goboleedka galmudugina waa dawlad goboleed caan ku ah inuu la shaqeeyo oo danaha bulshada ugu adeego hanaan dawladnimo caan ku ah buu ahay halkiisii in lagu wadaan ku baaqaya oo laga daayo dawladdan ka horreeyay iyo dawladdan harkaa u jarno iyo heshiiskii baan ka baxnay inta inaan shacbi aysan maqashiin baan culimada ugu baaqaya dawladdana waxaan ugu baaqaya culimadu in badan bay gobolkaasi joogeen oo shaqeynayeen oo adeeg bulsho fulinayeen wada hadalkii haddii habacsanaani ku timid in mar labaad wada hadalkii iyo u yeerid iyo la tashi inay iyaduna ku bedesho ciidan la dhuro oo la geeyo Dhuusamareeb oo la dhoobaahay wax xalihi ma keenayo sababtoo ay tahay Dhuusamareeb cid laga ilaalinayay iyo cid laga baqayay iyo cid caqabad ku ahayd midna ma jirin ciidan baa joogay ciidankaas amnigiisa sugay dadkuna ciidankaasay boqolkiiba boqol kalsooni u hayeen dawladduna ciidankaasi ciidan u ahaa marka asagana waxaan qabaa ciidankii joogay iyo Ehelsunna inay intay la hadlaan khilaafaadka jira la dhameeyaan baan ayagana ugu baaqaya dhanka kale waxa aan wax ka weydiinay shirka ka socda Hobyo ee lagu heshiisiinayo beelaha galmudug 13 qabiil 5 ka mid ah ayaa Hobyo maanta xaadir ku ah shantaasi waxay u istaageen danaha iyo maslaxadooda iyo waqtiga dheer oo ilaa 30 sanadood oo colaad dalka ka jireen habacsanaan timid khilaaf yimid dhibaatadii oo sii xoogaysatay dadkii oo marxalad adag ku jira iyo duruufo adag iyo abaara iyo colaado badan ku soo maray dalkii oo marxaladihiisu ay noqdeen inta badan colaado inay ka jiraan waxaasoo dham inay iska warsadaan ayaguna ay tooda xallistaan midda guud ee Soomaaliyana aragti ay ka dhiibtaan ayaa shirkaasi ku bilowday gudiyadii dhisay oo qabanqaabadana aan ku wada hadalnay oo xoogaal ka ahaa haddeerna waxay ka hadlayaan waa shanta beelood dhexdooda iyo khilaafaadkoodii iyo dhibaatooyinka iyo habacsanaanta jirta inay baabi'iyaan kadibna ay u gudbaan danta guud ee maslaxadda Soomaaliyeed kaalinta ay ku leeyihiin sida uga qaadan lahaayeen jiritaanka galmudugna shantoodaas markay dhamaystaan beelaha kaloon soo sheegana inay gogol u dhigaan si looga baxo khilaafka colaadaha isqabsiga iyo dib u dhac loona gaaro horu socod iyo horumar ayuu ajandihiisu yahay waxaana leeyahay intii ka soo shaqaysay oo saldhigga u ahayd oo hal abuurka lahaydna waanu hambalyeynaya waxaan leeyahay waxaad keenteen taariikh waxaad keenteen jiritaan iyo midnimo waxaad keenteen waqti adag iyo duruufo adag bulsho ku jirta in la kulmiyo hanaanka ay ku kulmi lahayd baad soo alifteen waa ku mahadsantihiin dadka mas'uuliyiinta iyo dhaqanka iyo dhalinyarada iyo haweenka iyo culamaa diinka iyo ganacsatada ayaguna waqtigoodii qiimiga lahaa muddo 50 habeen ah u fadhiya musaalixadii guud ee dantii ay ayagu xaq u lahaayeen xalinaya ka qayb galay danahoodii iyo guryahoodii iyo carruurtoodiina uga tagay iyagana waxaan oran karaa ilaahay ajar ha idinka siiyo waxaad ka talinaysaana waa dan guud maxamed cabdi cismaan maxamed faradheere Sam News TV magaalada Muqdisho.